baraha bulshada ee ay Soomaalidu ku wada xiriirto waxa si weyn looga hadalhayaa saacadihii la soo dhaafay guri ay sheegeen in taageerayaasha madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in si mutadawacnimo ay ugu dhisi doonaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si uu ugu noqlaado madaxweynaha laga guuleystay ee Maxamed Farmaajo gurigan oo aruurinta dhaqaalaha ku baxay dhismihiisu uu haatan socdo ayaa sababta loo dhisay lagu sheegay mid loogu mahadcelinayo madaxweyne Farmaajo maadaama uu diiday ku tagrifalka hantida qaranka waa siday aaminsan yihiin kooxda madaxweynihii hore iyo taageerayaashiisa dhiiran madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatan degan guri ku dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa la sheegay inuu aqbalay ama uu la socdo qorshahan la sheegay in guriga loogu dhisayo waxaana xubno ku dhow ay sheegeen in fikirka dhismaha gurigan uu ka yimid shacabka Soomaaliyeed ha yeeshee madaxweynihii horena uu aqbalay qiyaasta qarashaadka ku bixi doona gurigan oo la rumaysan yahay in laga dhisi doono caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ah mid sare waxaase kooxdu ay sheegtay in wali aan la jaangoon qarashaadka hase ahaatee qiimaha lagu dhisi doono lagu dhawaaqi doono markii aruurinta lacagtu ay soo dhamaato xubnaha muuqda ee sida weyn ugu ololeynaya dhismaha gurigan waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Cali Yare iyo afayeenkii hore ee madaxtooyada Cabdirashiid Maxamed Xaashi siyaasiyiin badan ayaa aaminsan in lacagtan la sheegay in guriga loogu dhisay madaxweynihii hore ay tahay mid hore loo musuqmaasuqay isla markaasna la xalaaleysanayo waxaana sidoo kale in la geliyay xilliga lagu soo beegay aruurinta dhaqaalahan oo dalku ay ka jiraan abaaro baahsan oo dadkii dunyadu ay saameysay guddiga qabanqaabada ee ololaha ugu jira dhismaha guriga madaxweyne Farmaajo loo dhisay ayaa sabeeniyay eedayntaas oo ah in qorshu uu yahay mid lagu xalaaleysanayo lacag hore dalka loogu musuqmaasuqay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii hore ee dalka ayaa 23kii bishii hore ee May ka guuray madaxtooyada Villa Soomaaliya kadib markii xilka uu ku wareejiyay madaxweynaha kaga guuleystay doorashadii dhacday 15kii bishii hore ee May ee Xasan Sheekh Maxamuud bishan gudaheeda ayuu magaalada Muqdisho kaga qayb gali doonaa madaxweynihii hore Farmaajo caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud waxaasan la ogeyn kadib ka qaybgalka caleemasaarka inuu sii joogi doono caasimadda Soomaaliya ama guud ahaan dalka iyo in uu dib ugu laaban doono dalka dibadiisa haddaba daawade sideed u aragtaa adigu dhaqaalaha la aruurinayo ee guriga loogu dhisay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fadlan aragtaad noogu rab qaybta hoose ee warbixintan